assalaamu calaykum. aad baad baahi ugu qabtaa inaad maraykan ka tagto. waa wax qof kasta uu jecel yahay. keligaa ma tihid ama soomaaliya joog ama xitaa meel kale oo adduunka ka mid a ku noolow. dadku way wada jecel yihiin inay maraykanka aadaan, waayo waa dhul lagu sheegay fursado badan inay yaalaan. qof kastana inta uu nool yahay wuxuu rabaa in maal adduun uu tacbado. maraykankana waa meelaha ugu sahlan ee qofka uu lacag ka samayn karo. kuma qaldin haddaba. xalay markii aad gelisay confirmation codekaaga ma lagu soo qoray fariin dhehaysa you have been selected for further processing. waa lagu doortay, horaan ugu sii socon kartaa codsigaaga. micnihii si random ah ayuu mashiinkii kuu doortay adiga. waxaa ka mid noqotay 55,000 oo qofood oo green cardka fursad loo siin doono. wejigii koowaad waa ku guuleysatay, laakiin waxaa ku hor yaalla waxyaabo badan. waadna wareersan tahay oo keliya waxaad isweydiinaysaa, haddaan guuleystay ma viisihii ayaa la iisoo diraya? green cardkaygii miyaa boosto iigu soo dhaceys? maxaan sameeyaa? waa jahwareersan tahay. dad badan oo adiga kaa horeeyey oo macluumaad la-aan ay ku dhacday darteed maanta weli u jooga halkii ay joogeen, ama africa ama meel kaleba ha noqotay, ayaa jira. macluumaadka aan kula wadaagayana waa waxa aniga naftigeyga sameeyey. ha isdhihin ninkan asaga meel ciduu ku dhegan yahay. waxaan ka mid noqday 55,000 ee qofood ee sida hordhaca ah loo doortay. waa faraxsanahay markii qayb la fiiriyo, waa sax, sababtoo ah tijaabadiyaa guuleysatay. weliba soo bilaabatay 2010 oo aan xareentiisii bilaabnay anagoo dhalinyaro badan ah oo wadanka qurbihiisa joogna. markaas maxaa la sameynaa marka? hadda oo aada guuleysanay maxaana hor yaalla? adiga iyo anigaba isku mid aan nahay, baahidaasna wayna haysaa. wax badan oo aqoona oo aan kugu dheerahay ma laha, oo maraykankii ma joogo. laakiin intii aan soo ogaaday waxay ila noqotay inaan adna kula wadaago, waayo hal meel aan geedi u nahay. laga yaabase beri inaan hal meel oo United States of America aan shaah ka wada cabno ani adiga, way dhici kartaa. markii processkan hadda intaas uu noo maraayo oo nala doortay oo dadkii koowaad ee la doortay aan noqonin, processku wejigiisii koowaad waay. waxaa jira phase 2 iyo phase 3 oo soo gunaanadaya arrimahaas oo dhan. waa kadib markaa saddexdaas weji soo maxan in nala siiyo kaarkii ama socdaalkii wixii aan ku bixi lahayn. laakiin sidee loo sameynaa? hadda dadka guuleystay computer kala saaray. next waxaa ku xiga marka inuu qofka asaga sameeyo form kale inuu buuxiyo oo la yiraahdo DS 260. wax kale kuma buuxinayay, sidoo waxaa ku qoraysaa macluumaadkii marka hore aad sheegtay. tusaale anoo kale hadda mufrad haddaan ahay ama qof kaligiis aan ahay, tusaale waxaan gelinaa macluumaadka aniga qof ahaanteeda kaliya ku saabsan, oo markii hore qof uusan ku qoranin in reer uu la soco. tusaale haddaa markii hore ku qoratay inaad leedahay caruur iyo xaas, isla macluumaadkoodiyaa xaggana ku buuxinaysaa. wixii markii hore aa qortay inaad qortid waa. haddii keligaa aad tahayna keligaagaa buuxinaya. DS 260gaas formkaas markaad buuxisid oo hoos tagaaya hay-ad gaar ah oo qaabilsan kala shaadheynta iyo process gareynta ama socodsiinta howlaha dadkii wejiga koowaad kusoo gudbay ayaa gacanta ku dhigi doona. iska jir macluumaadka informationka aad qoraysid hadduu wax yar khaldamo, waxaa 99% guarantee ah in fursadaadii ay luntay. waayo meeshaan intaasoo kun oo qofood ayaa beretamaya. jacayl adii lagu qaban laguguma qaadanaye, nasiibkaagaa ku wada. okay, markaa intaas buuxisid oo formkaas la buuxiyo, macluumaadkaaga aad buuxisid, waxaa kuusoo dhici doona processkaas kadib fariin kale iyo lifaaqyo ay la socdaan. wejiga labaad waay. wejiga labaad maxaa la sameynaa? loo baahanya waad diyaarsanaysaa inaad sii diyaarsatid waay. hadda documentigaaga dhalashada, waraaqada dhalashada iyo sugnaanta haddaa Soomaali tahay, baasaboorkaaga, wax kasta oo supported document noqon kara. probability-ga ama rajada adig aad qabi kartid inaad guuleysatid, inaad aqoon leedahay ama xirfad leedahay, kaalinta ugu muhiimsan waa iska socdaa keliya. marka ilaa hadda wejiga koowaada laga soo gudbay mugta. wejiga labaad qof kasta waxaa la qiimeynaa muxuu qofkan anaga noo soo kordhi karaa, waa la fiirina. marka haddaa jaamacad dhamaysay, shahaadadaada documentiga jaamacadda diyaarso. haddaa xirfadyahan tahay oo xitaa mechanic aad tahay, iscadday inaad mechanic tahay. waa u baahan tahay xirfadaha leedahay inaad qortid wax qoraala oo lahaayo oo documenti aan loo baahan yahay. marka documentiyadaas la sameeyo oo aad diyaarsatid oo aad xareysid, ha degdegin. haddaa guri leedahay gurigaaga iska gadin. baabuur haddaa leedahay baabuurkaaga iibin.
haddii hamigaaga hadafkaaga ugu weyn keliya uu yahay inaad maraykan tagto deg deg intuu dabada kaa galo ha haye kicin, waayo hawshan processay u baahantay. mostly waxay qaadataa 6 bil ilaa 7 bilood, laakiin sanaday gaartaa. marka intaan sameyno wareysiyaa jiraayo oo face to face ah oo la isor fariisanayo, la wareystihii oo adiga iyo wareystihii ayaa isor fariisanayo, waana wada hadli doontaan oo su-aalo question lagu weydiinayo. si haddaba taas aa uga feejignaato maxaa u baahan tahay inaad isdiyaarisid macluumaadkaaga. waxaase ka horeeya marka aad kasoo gudubtid dokumentiyadaadii lagu qanaco in laguu soo diro wax la yiraahdo caafimaadka ha ka cabsanin. haddaa reer leedahay iyo haddaa keli tahayba ma aha wax DNA iyo dhacaan jinigiis ku saabsan. keliya waxaa la hubinaa qofkan socdaalka baxaaya maraykanka aadaya ma yahay qof caafimaad qaba oo waxyaabaha uu maaragta xanuunada uu la nool yahay, xanuuno bulshada maraykanka haddii uu tago aan wax u dhibayn ma yahay. su-aalahaas ayaa caafimaadkaaga ay ka jawaabi doonaan. haddii cudurro halisa aa qabtid 89% haddaan bini aadamnimo lagu fiirin waxaa u saarantaa qarka in hawshaadii ay sidaasi ku baaba'do. haddii xanuunada adiga ku haaya ay yihiin kuwa normal ah oo la sixi karo oo deganna oo aanan bulshada meesha joogta maraykanka ku nool aan dhib u keenaynina, waxaa ogaan kartaa inaanan adiga aysan ku hor istaagi karin ama caqabad aysan kugu noqon karin, kadibna si sahlan aad ku bixi kartid. wareysiga waxaa lagu weydiinaa dokumentiyadii aa xaraysid. confirmation codekaaga waa inaad korka xifdisid, waa lagu weydiin doonaa inaad adiga tahay iscadayn. haddaa aa dhahdo waa khatar kale. magacaaga iyo da-daada iyo wax kasta oo macluumaad qoyskaaga ku saabsan waa inay ismaajigangareeyaan, islahaadaan, waa lagu weydiinaa ayagan. waxaa kaloo intaasi ku dheer oo lagu weydiin doonaa waxbarashadaada iyo in yar oo kooban oo ku saabsan dhibaatadaada iyo qofkaad tahay adiga inaad isharaxdid. haddii aad guulaysato oo lagu siiyo calaamada tigta ah oo lagu dhaho wareysigaagii waa ku qanacnay, waxaa buuxisay dhammaan shuruudihii, waxaana noqotay qof mudan in maraykanka uu ku noolaado. halkaas ayayna ka bilaabanaysaa geedigaagi. warqad ayaa laysa siiyaa. hadda nidaamka ma ogin in la bedelay in kale, laakiin sanadihii hore waxaa jirta qofka in diyaaradiisi iyo qarashkiisi wax kasta oo safaaradda ay siiso uu asaga maaragtay qaadan jiray, laakiin lacag yar oo hordhac ah ayaa safaaradda lagu bixin jiray oo fududeyn ah, howlaha lagugu fududeyn. hadda ma ogin laakiin in isbedesho. haddaba haddii lagu doortay fadlan waqtiga wuu kugu socdaa, ha suganin in ayaga kula soo xiriirayaan. raadi foomkan, buuxi macluumaadka, gudbi, kadib ayay ku imaan doontaa. damoor aad daahdid oo aad isdhigatid waa damoor fursadaadii ay yaraatay ama ay iscuntay. dad waxaa jira haddaba macluumaad khaldan dadka siinaya. xogtaan adee gaar kuu tahay, qofna ha iskaga dhiibin, qofna ha iskaga sheegin inaa xitaa ku guulaysad. sababtoo ah hadhow qof xaasida ama maseersan wuxuu sameyn karaa inuu adiga macluumaad aan jirin oo sax aan ahayn uu ku siiyo, taasoo dhib weyn kugu noqonaysa walaalkay ama walaashay. marka raadi macluumaadyada saxda ah adiga oo baraha bulshada galaya, social media nooc kasta u noqdo, pageka dvlottery.state.gov gal, baar waa helaysaa. haddaadan aqoonin xitaa oo luuqada english kugu tahay oo englishkaaga uu liito, soo qaado google translate geyso af soomaali ama af carabi ama afkaa taqaanid ka dhigo, kadib macluumaad sax ayaad heli doontaa. cid kasta oo danaynaysa haddaba in laga caawiyo si saaxiibtinimo iyo walaalnimo ahna wixii aan awoodnaa ugu tabarucina, walow aynaan wada balan qaadi karin inaan saaxiibadoo dhan wax macluumaad ku saabsan arrintan wada gaarsiino. haddana intii markaas aan fariintooda ka jawaabi karno oo ka jawaabayna. waa mahadsantihiin. maraykanka ayaa inoo balana.